daawadayaal ku soo dhawaada studio Seban bartay kullada YouTube-ka daawadayaal waxaa ka baxay studio Seban barnaamijyo badan oo aan ku falanqeyno arrimaha filimada barnaamijyo hore oo ka baxay studio Seban waxaa kamid ahaa fasahaadka lagu hayo fasiraada filimada afka Soomaaliga lagu turjumo barnaamijkaas waxaa igala qaybqaatay macallin Jeekayo maanta dhinacayga fadhiya oraadii aanu halkan ka tabin iyo barnaamijka baxay dad badan ayaa fikirkooda ka dhiibtay waxaana dib noogu soo laabtay in shirkadaha qaarkood ay yiraahdeen annaga ayaa naloo daleeyahay annaga ayaa hadalkaasi nala ku durayay waxyaabo noocaas oo kala macallin Jeekayo mar kale ku soo dhawo barnaamijka arrintan cusub iyo cabashadan tan noo timin annaga oo dib noogu soo laabatay hadaan studio Seban maxaad ka dhiilay horta run ahaantii ugu horreyn waxaan salaamayaa taageeradooda dhan iga daawata barka internetka siiba Seban studio en aqilo run ahaantii en waxaan maqli jiray hadaanu hadalin ariga saan lagama deynayo hadaanu hadalnana waa afsalax ku dhig si fiican en mediahan waxa loo sameeyay run ahaantii wixii saxda ah in laga soo tabiyo si fiican anagu hadaanu nahay fanaaniin hadaanu nahay bahda tarjumaada aflaanta si fiican bulshada ayaan u adeegnaa si fiican bulshada waxa dhibaya ama qaldaya hadii aan aragno waa ku khasbanahay inaan ka hadalno saxaafaduha waxayba u furan tahay in wixii qalada ay saxdo right ku saxsan tahay okay marka anaga hal qofood ula jeedada ama diirada ma ana saarin cidna magacooda ma ana cidna ma magacaabin si fiican waxaan ka hadalnay bulshada waanu adeegaynaa dhammaan bulshada ayaan maaweelo iyo waxaan u nahay farxad gelin si fiican haddii aan bulshada u shaqaynayna aan ugu shaqayna si daacadnimo ah si fiican iyo si habsami ay ku jirto aan fasiraada aflaanta meel loogu dhicin si fiican marka dhagax la tuuray si fiican qofka hadduu qaato uu yiraahdo aniga ayaa dhagaxa laygu talagalay horta waa uu qaldan yahay qofku ahaadaba si fiican anaga hal qofood kama aanan hadlin shirkadooyin badan ayaan ka hadlay hadiya caaqil run ahaantii hadalkaaga meel ayuu taabtaa si fiican hadiya laakiin ma ahan adiga fartaagan inaad soo noqoto hadiya waxaana aniga hadda gaar ahaan caaqilow aan ka hadlayaa turjumaada aflaanta faragelinta lagu hayo kow maaha laba maaha saddex maaha waan leeyahay weli waa aan ku taaganahay bulshada haddaanu adeegayna si daacadnimo iyo sida nadiif ah noolagu bartay ha loogu shaqeeyo haddaana loogu shaqey karin faraha laga qaado yaan sumcad xumo magaalada la gelinin yaan anagana magacayna meel loogu dhicin yaan shirkad magaceeda loogu dhicin kumanaan shirkad ayaan ka furan magaalada Muqdisho waxaan u sheegayaa in shirkad kasta ay rabto magac iyo sumcad inay yeelato magac iyo sumcad goormaad yeelanaysaa bulshada adiga ku daawanaysa ama ku dhageysanaysa markaad qanciso adeegaaga aad u gudbisay markay la dhacaan laakiin hadday tahay waxaan doonaan samaynayaa Soomaalida hore waxay ugu maamahday badda hal malay ayaa qurmiyay anaga haddaan bulshada si daacadnimo ugu adeegayno oo aan dantooda ka samaynayno adiga aad si qaldan u shaqaynayso qaladka adigu aad gashay aniga uu isaameyn caaqil buu saameyn aad ilaa waa ku wada jirnaa hadiya marka ha noqon far soo taagan hadiya mindi ku taagna waa laga wanaagsan yahay caaqilow marka waxaan leeyahay aniga mar maaha laba maaha tala ahaan bulshada waan u wada shaqaynaa bulshada wayna jecel yihiin yaan la gaarsiinin heer in anagana la naco adiga haddii lagu naco aniga ayaa leenacay aniga haddii leenacay caaqilaan caadiya okay marka fadlan mid kale aan ku darsanay barnaamijkii fanaanadii ahayd Aamina Dhool ayaa xanuunsan baa la yiri saxaafadda media inay ka daawatay in kala maaqan jiray oo lacag badan baa loo ururiyay fanaaniin badan baa ururiyay maadaama adigu dalka aad joogto aad dibadda aadan jirin oo laftaada la dhigi karo dhibaatooyinka dalka ka dhacay weyna wada saameyn dadkii baxan kuma jirtid maxaad ku darsan lahayd fikir ahaan adigoo dad badan baa ku daawanaya waxaan ku darsan lahaa horta runtii Aamino waa gabar Soomaaliyeed waa walaashayna si fiican dhibaatada haysata ilaahay ha ka bixiyo qof walba meel walba uu joogo qiimeynaya fanaannimada Soomaalinimada walaaltinimada in uu wax u qabto koos macnaha maanta Aamina haddaan dhibaatadaas ku fiirsano bari anaa lagu fiirsanaya saadanba adiga lagu fiirsanaya
marka run ahaantii Soomaali way isu baahan tahay Soomaali waa walaalo Soomaali way isjeceshahay inaan isjecelnahay taa shaki kuma jiro waan isjecelnahay qof walba qofka kale uu u damqadaa san anaga ugu damqanay aamino waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto musiiqa dad badan oo adiga ku taageera bal maxaad u sheegi lahayd in aamino dhool ay gaarsiiyaan haddii ducaan lahayd haddii ahaan lahayd dhaqaale haddii dad badan ba adiga ku taageersan waxa laga yaabaa hadalka aad tiraad inay qaataan maxaad markii bulshada u soo jeedin ma sha Allah siiba taageerayaasheeda waxaan leeyahay maanta aamino qofkii taageera aniga ayuu taageeray aakhir ayuu taageeray fanaaniinta dhan ayuu taageeray meel walba jooga ma ahan kaliya in lacag la siiyo ma aha kaliya in qaraan loo aruuriyo waa in loo duceeyaa waa in macnaha loo rajeeyaa caafimaad marka walaalayaalow waan isjecelnahay fanku haddaanan nahay anaga hal far ayaan nahay fadlan taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa yaan aamino lagu fiirsanin dhibaatada ay maanta ku jirto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu